السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ويا الملكة أدونك جوجتان كنا سو دواada channelkeena cilmi faafiye haddii aad channelka cusub tahay magacaygu waa Baaruud Abdiraxmaan maanta waxaan idiin wadaa barnaamij runtii xiiso leh oo qaali ah barnaamijkaas oo ku saabsan 5 wax oo u baahan inay sir ku ahaato inta aad nooshahay marka barnaamijkana maanta aynu iska bilaabno oo hadal aan idinku daalin laakiin suga runtii fariin ayaan u hayaa qof kasta oo arday ah fariintaas oo ah fariin arday kasta anfacaysa fariintaas oo ah fariin arday kasta oo doonaya inuu aqoontiisa kordhiyo waxbarasho ahaaneed anfacaysa balse hadda u sheegi maayo oo fiidiyogan dhamaadkiisa ayaan insha Allah ugu sheegi doonaa inta ka horeysana barnaamijkeenan maanta ayaan hore ugu sii socon doonaa isla socod 1 let's go shantaas wax ee u baahan inay sir ku ahaato inta aad nooshahay qodobkiisa koowaad waa kow cidna hala wadaagin oo adiga sir ha ku ahaato ceebaha dadka kale tusaale ahaan haddii saaxiibka ama walaalka ceebihiisa uu adiga ku sheego mar uu ku lahaa ila tali amaba adiga aad aragtid saaxiibka ama walaalka oo xaalad ceeb ah ku sugan ha sheegin oo adiga sir ha ku ahaato haddii aad wax u qaban karaysid wax u qabo si wanaag ku dheehan tahay oo ula xali haddii aad sidan samaysid runtii waxay ku noqonaysaa mid aakhiro iyo adduun ku fiican adiga tusaale ahaan xagga adduunyo qofkaas aad asturtay ee Allah dartiis aad u asturtay oo aadan sheegin waxaa dhacda inuu noqdo qof abaal fiican ku haya oo dadka kalena aan kula simin xagga aakhiro yani diiniyan haddii aan ka agno waxaa jira xadiis nabigana laga soo wariyay sallallahu alayhi wasallam oo oranaya man satara awrata akhihi satarahu Allahu awratahu fi dunya wal aakhirah oo macnaheedu ay tahay qofkii astura awrada walaalkiis ceebihiis isna Ilaahay baa asturi doona awradiisa adduun iyo aakhiraba okay haddaba qodobkeena koowaad haddii intaas aynu uga soo gudubno oo aynu u gudubno qodobka labaad cidna hala wadaagin xogta maalka aad haysatid ee Allah uu ku siiyay oo maanta dadka qaar baa jira oo aan sugi karaynba inay bilaabaan sheegida iyo inay ku faanaan marka ay wax cusub soo iibsadaan ha noqoto gaari cusub guri cusub maryo cusub wax kasta ay lacag iibin karto ama wax kasta ay lacag gooni karto say noqotaba ma aha xaalad fiican oo u fiican adiga iyo maalkaaga 3 cidna hala wadaagin oo sir ha ku ahaato qorshayaasha hadafkaaga ee mustaqbaleed cilmi baaris la sameeyay ayaa sheegaysa inaad tahay qof ku guuleysan kara qorshayaasha hadafkaaga waa haddii aadan sheegin yani dad kale aadan u sheegin qorshayaasha hadafkaaga sidoo kalena daraasado la sameeyay ayaa sheegtay la wadaagista hadafkaaga dadka kale inay hoos u dhigayso macquulnimada ama suurtagalnimada aad ku gaari lahayd hadafkaaga 4 cidna hala wadaagin oo adiga sir ha ku ahaato wanaag aad dad kale u qabatid sida qof aad maalin gaab siisay oo aad caawisay sidoo kale qof miskiin ah oo aad wax siisay cidna hala wadaagin 5 cidna hala wadaagin oo adiga sir ha ku ahaato arrimaha qoyskaaga yani adiga iyo xaaskaaga ilan qoys baad tihiin maanta ma jiro haddii uu jirana waa dhif qoys aan problem ka dhex jirin haba ku sii kala duwanaadaan marka inaad la wadaagtid problemska qoyskaaga dadka kale wax adiga xal ku soo kordhinaya ma aha haddii aad u sheegtid dadka kale problemska qoyskaaga ka jira waxa dhacda kaliya inay ku yiraahdaan walaal waan ka xumahay taas wallahi aad iyo aad baan uga xumahay taas marka adigana in lagu yiraahdo waan ka xumahay taas oo kaliya wax adiga xal ku soo kordhinaya ma aha marka waxa haboon inaad u sheegtid problemska yani dhibaatooyinka qoyskaaga ka dhex jira dadka ehelkaaga ah ee waliba kuugu dhow
iyaga ah runtii dad wax kaala qaban kara, iyaga ah dad runtii garab ku siin kara. Marka inaad dad kale aad u sheegtid muhiim maaha, marka adiga sir ha ku ahaato. Intaas ayuu maanta inoogu egyahay barnaamijkeena. Marka aan idiin sheego arrintii aan idinku yidhi fideogan dhammaadkiisa ayaan idinku sheegi doonaa. Arrintaas waxay tahay bishan Ramadaan insha Allah inaan channelka idinku soo gudbin doono barashada luqadda Englishka, weliba modern English, Englishka casriga ah, Englishka maanta lagu hadlo, tan native speakerska dadka luqadda u dhashay ay ku hadlaan. Runtii horeba cashiro English ah channelkeena waan kusoo gudbin jiray, balse labadan cisho maalimahan gaab bayna soo kala dhex galay oo cashiradii hore ee English ku saabsanaa ee channelkeena aan kusoo gudbin jiray way jiraan arday badan oo ku xidhan oo ka faa'iidaystay ilaa hadda qaar ila soo xiriira. Marka waxaan insha Allah idin ballan qaadi doonaa in aan meel fiican idinka gaarsiiyo Englishka. Tan aan insha Allah idin faa'iideyn doono oo aan doonay inaan idin faa'iideeyo maaha old English, English qadiimi maaha. Marka kaliya just what I'm going to teach you all about modern English. English aan doonay inaan baro kaliya waa modern English, English casriga. Marka haddii aad jeceshahay runtii inaad ka faa'iidid waad ka faa'iidaysaa. iguna halaya inaan runtii meel fiican aqoontiina Englishka aan idinka gaarsiiyo waa haddii aad ku xirnaataan channelka. Intaa kadib fideogan ku xiga wuxuu noqon doonaa insha Allah cashar qiimo leh oo xiiso leh ku saabsan Englishka. Marka wixii su'aal ah aad qabtaan iyo wixii talo ah, wixii fikrad ah iyo wixii faalo ah aad haysan qaybta hoose ee commentiga ayaad insha Allah igu soo qori doontaan. Intaa kadib waa anigoo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.